shirkadda New Age ee dalka Ingiriiska ayaa 1.6 trilyan oo gaas dabiici ah ka heshay deegaanka ceel Quraan oo dhacay deegaanka Soomaalida Itoobiya sida laga soo xigtay wargeyska madaxa bannaan ee ka soo baxay Itoobiya ee lagu magacaabo Wariye. Shirkaddan ayaa shidaalka ka soo saartay meel u dhow halkii shirkadda dalka Shiinaha laga leeyahay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loogu yeero GCL ay gaas soo saaridda ka bilowday sanadkii hore. New Age ayaa baaritaankan ka wada dhowr baloog oo ku yaala dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya ay hadda maamusho. Wargeyska ayaa soo xiganaya wasiiru dawladda Itoobiya ee qodaalka iyo shidaalka, waxaana uu yiri waxaanu haatan ka shaqaynaynaa sidii aan u suuqgeyn lahayn gaaskayaga. Wargeyska ayaa intaa ku daraya in shirkad kale oo Mareykan laga leeyahay oo lagu magacaabo Greencam ay wasaaradda shidaalka ee Itoobiya u bandhigtay hindise ah inay aagaasi ka furto warshad gaaska lagu sifeeyo iyadoo doonaysa inay adeegsato tiknoolajiyada casriga ah ee gaaska lagu rogo dareeraha. Kharashka guud ee lagu maalgelinayo shirkaddan ayaa ku dhow ilaa 2 bilyan oo dollar. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo hay'adda African Global Energy ay webkeeda rasmiga ah ku daabacday war nuxurkiisu ahaa inay socdaan qorshayaal looga arinsanayo in mashaariic heer hoose ah oo kala gedisan laga fuliyo deegaano maxalli ah oo ku yaala dalka Itoobiya.